siyaasi cabdiqani salaf oo ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliland ayaa hambalyo u diray madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo xukuumadda cusub ee soo magacaabay. ducada iyo hambalyada waxaan u dirayaa madaxweynaha cusub ee jamhuuriyadda Soomaaliland Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi golihiisa wasiirada uu ku soo dhawaaqay ee uu soo cogtay waxaanu leenahay madaxweyne waad asiibtay wixii aad soo cogatay ee aad u xulatay inay qaranka hawlihiisa kala duwan kala shaqeeyaan annaguna waxaanu ku qasbanay haddaanu shacabkii nahay inaanu kugu taageero waanu kugu taageersanay waanu idin barbar taaganahay hadafkeenuna waa Soomaaliland ka qurux badan sida ay maanta tahay inaynu dhisno mustaqbal fiican iyo aynu jiilka cusub u dhisno maaha maanta in dad fara badan ay ka cadhoodaan maxaa la xulan waayay waxa weeye cugta qofkii uu arko madaxweynuhu inuu dalka u shaqayn karayo ayuu cuganayaa xor baan u yahay haddaba qolooyinkii madaxweynaha dhisay ee maanta le maxay san u dhacday waxaanu leenahay mar haddii madaxweynaha dhisteen dee dawladda xaq la ka tiino idinka dhisay wixii la magacaabay ogolaada oo madaxweynaha ka hor istaagina shaqadiisa oo ogolaada barbar istaaga waxaanu ugu ducaynaa madaxweynaha iyo golaha wasiirada ee xushayba in ilaahay xilka culus ee loo igmaday ilaahay u fududeeyo oo nin waliba shaqadiisa si hufnaana uu u qabto taasa wax walba muhiim nooga ah mar haddii madaxweynuhu soo dooranay oo aynu dalkii isbedel ka sameynay isbedelkaasi cidii uu cogtay inay la shaqeeyaan waynu taageeraynaa waxaynu u baahannahay maanta inaynu dadka reer Soomaaliland gacmaha isqabsano muxaafid iyo mucaarid oo dhan aynu wada jeedsano waxaynu ognahay maanta Soomaaliland in lagu soo duulay raggii shalay laascaanood ku soo duulay dadka barakiciyay maantana ay ceer gaabo intay guriyihii maatida hoobiyayaal iyo soo dhex dhigteen rasaas ee dadkii la dhacayaan waxaynu u baahannahay inagoo gacmaha haysanna jamhuuriyadda Soomaaliland inaynu iska qabanno kooxda fidmada ka wada magaalada ceer gaabo oo aynu dawladana waxaan ugu baaqayaa oo aan leeyahay dawladdu wax qabadkeeda ka bilowdo inay xasiloonidii iyo nabadgeliyadii magaalada ceer gaabo ee la doonayo in dadka la qaxiyo in laga hortago gacan bir lagu qabto dadka sharwadayaasha ah ee magaalada fidmada ka wada in gacan bir lagu qabto ayaa muhiim ah si magaalada nabadgelyada loo xaqiijiyo magaalada nabadgelyadeeda waxaynu u dooranay dawladdaas ayaynu u doo fadhinaa inay amnigeeda sugi doonto waxaynu leenahay madaxweynaha iyo cidii uu cogtayna waanu u ducaynaynaa hambalyo Allah idinku astiro xilkiina maanta shalay raggii TV-da fadhiyay lahaa waanu hambalyeynaa madaxweynaha ee faraxsanaa maanta markii golaha wasiirada la magacaabo ninka TV soo fadhiistay raadaan waan hambalyeynayaa dawladda iyo madaxweynaha waa nin kalsooni ku qabo qarankan jecel oo aan ka cadhaysanayn liiskan iska dhex waayay waxaan leeyahay madaxweynuhu 40 milyan reer Soomaaliland uma cugan kareen inay noqdaan mas'uuliyiin laakiinse intii uu ka soo xushay ayuun baynu la shaqayn doonaa.